munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinta aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Saaxil Cabdi Cali Xayd iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska Jaamac kuwaasi oo ka hadlay maalintaasi iyo qiimaha ay leedahay. runtii munaasabadan waxay dheertay munaasabadaha kale maanta wax weyn bay dheer tahay ninkii dareensan uu dareensan yahay maanta halkan horteeda waxa fadhiya ciidamadii bilayska qaranka Soomaaliland ee gobolka Saaxil oo maanta darajadii ay ka muuqato oo dhammaan dalka oo dhan la wada gaarsiiyay amaanta waxaan ku faraxsanahay hambalyeynaya aad ugu hambalyeynaya sanadguurada labaatanaad ee maanta ay xusayno aasaaskii booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. hambalyo ayaa laga hortagi waayay wuu dhacay waa detection of crime waa in dambiga laga daba tagaa oo la baara oo ma taqaanay cidiis gashay la maqta investigation la sameeyo oo ka bacdina ma taqaanay baaris lagu sameeyo waxa taas oo raacda preserve life and public property waa inaan nafta iyo maalka ilaalina magaca booliiska gobolka waxaan jeclahay horta marka ugu horeysa waxaan ku mahadnaqayaa ajiibkaana soo ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan xafladan labaatanaad ee ciidanka aasaaska ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan ciidanka booliiska ugu hambalyeynayaa dhammaantood sanad guuradooda labaatanaad ee maanta loo dabaaldegay halka lagu dabaaldegay xuska sanadkani ee ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa kaga duwanaa sanadihii hore darajooyinka uu ku taxay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taasoo ciidanka guud ahaanba muuqaaladooda wax ka bedeshay. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.